xaaladda Qoryooley ka taagan ma ahan mid la sii fiirsan karo oo haddii ay sidaas ku sii socotana guud ahaan magaalada laga weyn doonaa qof shacab ah oo magaalada dhex lugeeya. beelaha ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudugna dagaalkooda waxa uu dhaliyay qasaarihii ugu xooganaa oo meydadka qaarkood ayaa howdka ku jira oo ilaa hadda la baxsan laayahay. labadan qodob ayaan halkan doonaya inaan kula wadaago saaxiibayaal soo dhawaada waxaan ahay Cumar waxaanu ka hormareynaa dagaalada ka socda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale Puntland. Galdogob iyo Gaalkacyo ay ka soo kala jeedaan labadan beelood ee dagaalamaya waxaana dagaalka uu maanta ahaa kii ugu xooganaa inkastoo saacado ka hor xabadaha la sheegay inay istaageen haddana waxaa dhacaya xabadaha waa rasaasta xoogan sida suuga iyo qoryaha kale ee dhashiikaha ugu horeeyo. wararku waxa ay sheegayaan in dagaalkii halkaasi ka dhacay uu geystay qasaariyo ugu xooganaa abid oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tiro ka badan 20 ruux ayaana la tilmaamay in halkaas ay ku nafwaayeen oo wax micno ah oo ay u geeriyoodeen ilaa iyo hadda aan la aqoon. sidoo kale waxaa jira tiro dhaawacyo ah oo intaasi ka badan oo iyagana markaasi la sheegay in loo kala qaatay Galdogob iyo sidoo kale Gaalkacyo oo xarun u ah gobolkaasi Mudug. waxaa la tilmaamay dagaalku in ay sidoo kale ka qayb qaateen ciidamo ka tirsan goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Galmudug inkastoo wararkaas aan la xaqiijin karin haddana waxaa muuqanaya oo muuqaalada iyo sawirada halkaasi ka imaanaya ay muujinayaan gaadiid dagaal oo ay leeyihiin maamul goboleedyadaas inay ka qayb galayaan dagaalka. waxaana dadka qaarkiis ay sheegeen inay qayb ka yihiin maamulada inkastoo baaq nabadeed ay soo saareen labada madaxtooyo ee Galmudug iyo Puntland sidoo kalena ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo. waxaa la tilmaamay in xilligan beeluhu dagaalkoodu uu ahaa amaba uu noqday mid sii xoogeystay oo marba ka sii dambeysana waxaa la filan karaa dagaal hor leh maadaama aanay jirin ciidan dawladeed oo ka kala socda labada maamul iyo dawladda dhexaba uuna jirin kuwaasi oo dhaxgelaya labadan beelood intaba. wuxuu ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan ku eegi doonaa Qoryooley aan aadno markan saaxiibayaal iyadana maalmihii ugu dambeeyay xiisad u dhaxaysa laba beelood oo halkaasi degan ayaa ka taagneed dadkii deegaanka ayaa guud ahaanba qaarkood isaga baxay xaafadaha magaalada waxaana jira warar kala duwan oo halkaasi ka imaanaya. ninkan waxa uu ka mid yahay rag halkaasi lagu qabtay oo mid ka mid ah maleeshiyaadku ay gacanta ku dhigeen sidoo kalena waxaa la tilmaamay in laga qabtay maleeshiyaad kale oo sida ka muuqata ariga iyo isaga u socday maleeshiyaad kale oo duleedka degmada la sheegay inay ku sugan yihiin inkastoo wararku ay sheegayaan in labada dhinacba gudaha magaalada ay ku wada sugan yihiin sidoo kalena xabado ay isweedaarsanayaan marka ka sii dambaysa oo saacad kasta ayay shacabku u nugul yihiin in halkaas dagaal uu ku qabsado oo korkooda lagu kor dagaalamo. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose indhaha ayuu ka fiirsanayaa maamulka degmada Qoryooleyna isla sidaasi oo kale oo laftarkiisa waxa lagu eedeeyay inay u kala safteen labada dhinac. maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah iyadana gaar ahaan wasaaraddeeda amniga iyo arrimaha gudaha oo ilaa iyo hadda aanay jirin ciidan ay u direen Qoryooley oo xilligan wajahaysa xaaladii ugu adkeed oo abi dad shacab ay ku noolaadaan.